waa ammaano yaroo lagu dhiibto berrina aad ka tegasid weeye marka tii rasmiga ahayd ee raasamaalka ahayd ee la oran jiray caws jilaal waa lama huraan halkaa sheekada inooga bilow waayahay professor cabdi waad naasan tahay dad badan ayaa waxay isweydiinayeen maalmahani professor cabdi ismaaciil samatar muxuu la aamusnaa ma xilkiibaa bedelay durbadiiba mise wax buu liqay waxa laga yaabaa inay dad leeyihiin calool weyn buu noqday laakiin sida taswiirtu tusayso wali calooshaydu halkii bay taallaa waxba ma cunin weli ilaahayna sunna uma keeno waxa weeyaan marmar bini aadamku waxa weeyaan hawlaha kala duwan mar hadal loo baahan yahay madaan loo baahnayn baa jira marka dadka masaakiinta bal waxoogii in meel wanaagsan loogu shubo oo loo jiheeyo ayaanu ka shaqaynaynay qaybna waa lagu yar guulaystay in badanna way naga xumaatay marka hawsha caynkaas ayaa lagu maqnaa markii hadal loo baahnaana ma ahaynba walaal wareysigan waxaan kaga hadli doonaa arrimaha doorashada Soomaaliya khilaafka soo kala dhexgalay madaxda ugu sareysa ee dalka balse marka hore waxaan jeclahay maadaama aad muddo sanad ah aad ku maqnayd Soomaaliya in muddo ahna aad ku dhex jirtay siyaasadda Soomaaliya maxaad noogu sheegi kartaa socdaalkaadii Soomaaliya iyo waxyaabaha aad ku soo aragtay walaal waxa weeye waxyaabaha bini aadamku uu dareemayo gaar ahaan haddaad macallin tahay waxyaabo badan oo dadku arki karayn baad arki kartaa oo macallinnimadu ku baraysaa waxa weeye dhulka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ahaa dhiilada taalla ducfiga taalla xanuunka ummadda ee taalla iyo qolooyinka siyaasiyiintu sidayna ugaba warhaynba ayna una soo jeedinna ayaa ahaa wixii ugu weynaayay runtii ama kaagi geliyey weeye in badan ayaan dad badan la sheekaystay oo mas'uuliyiin ama qaar mas'uuliyad raba waxa lagu hawlan yahay waxa weeyaan jaga sideen u helaa wax sideen u boobaa xoolo sideen u yeeshaa cid ka sheekaynaysa ummadaasi 30 sanadood wadnayd waxay ku sugan tahay rajadooda iyo mustaqbalkeegu wuxuu yahay dhif iyo naadir ay yahay dad caynka ay gala hadlay wala taasaana igu ama kaag badnayd sida aad ka warqabto waxa khilaaf xoogan soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha sidee u aragtaa khilaafkaasi walaal waxa weeye labadan nin meesha u sareeya ee la leeyahay waa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa walkii Soomaalidu oran jirtay reerka iyagu waa wada u la qaata malaha ninka madaxweynuhuna awalba garaad weyn muu lahayn iyo farsamo weyn iyo qiimo weyn oo ku fahmo qarannimadu waxay tahay 4 sanadood oo khasaara ayaa la soo maray runtii kii sanadda lagu jiraa oo wali dhammaystirin ninka ra'iisul wasaarihina waxa weeyaan nin yar oo iska da'yar inta 40 jir baa lagu leeyahay ma dhowr iyo 40 jir baa lagu leeyahay waa qof da'yar maanta waxa taagan oon aqoon u lahayn wadanka oon siyaasadeeda fahamsanayn oo kolba dhinac u boodiyo marna madaxweynahan la heshiiyay marna waan ka heshiiyay meel allaaliya meel lug soo hagaagana ma jiro qaybna ka qaatay boobkii baarlamaanka ee dhacay gaar ahaan guriga sare iyo guriga hoose intii la soo doortay marka waxa weeyaan laba nin oo tuuga oo wixii hay soo boobeen ku heshiin la weeyaan mid la raaco loo heeliyana ma jirto walaal maadaama aysan jirin maxkamad sare oo dastuuri ah haddana ay isqabteen madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha yay tahay in ay soo kala dhex galaan horta ilaahay baa wax dhexdhexaadiyay iyo de markuu bini aadamku garaad yeesho anu waxaan qabaa maanta qofka ugu sareeya ee wadanka sii jooga waa odayga Cabdi Xaashi la dhaho way ra'iisul baarlamaanka lama dib looma dooran wali isagu laakiinse waa ku sii sima weeyaan isagu inuu dhexdhexaad noqdo ayaa muhiim ah oo mas'uuliyadda qaato qolooyinka goboladuna way kala jabsan yihiin sidaynu awalba ogeyn oo halkaasi rajo kama soo socoto marka waxa weeyaan ummadda Soomaalidu inay fahmaan gaar ahaan dadka Muqdisho degan inay fahmaan in la doonayo in qalad iyo dagaal iyo rabshado meesha ka dhacaan ninkan madaxweynaha lagu leeyahay boob cad ayuu rabaa wuxuu ka soo goostay siday u eeg tahay ama inuu isagu wax walba boobo ama